بسم الله الرحمن الرحيم. halkaa waxaan ka tusaynaa nin musixira oo ka koofiyada sita waa ka halkaas soo galay meheradaas soo galay halkaas wuxuu tagayaa odhanaya waxa ay soo saara markuu yiraahdo ay soo saara waa loo soo saarayaa ka bacdi markii la soo saaro waa loo keenayaa ninkaasi inta qof counter taagan yahay cidna la hadli maayo qof Allah dadku iska eegaya oo kala gacanta u saaraya la isoo saaro waxaa oo kaamar basaale ninka buuran ilaa fawaa imaamadii iyo koofiyadii iyo garkii diinimada arribiga dhaana shareynaya xanaadiya jecelahay annagoo tusi doona ninkaas wuxuu sameeynaya annagoo tusi doona in ummadda laga qabto ninkaas wixii garanaysaa ay arkaan ninkaas oo ka wejigiisu sawirana way tusi doona insha Allah biidnillah inta hablahaasi taagan yihiin waxa laala iyo wuxuu hadlayaa ma jirto wata loo diyaar gareeyay khudradii hilbiga uu qaatay hinantaas markay greenka araad buluukaas ay tahay markay dhaqaaqdo takallama ilaa ay dhaqaaqdo mooyaane ninkaas hadli maayo qof hadduu soo istaago hadli maayo ninkaas 2 jeer buu isbaaraya iyo 3 jeer markaas wadaadnimadii meel buu kaga dhacay hinantaas markay dhaqaaqdo buu ninkaas hadlaya inta kale mobilku isku mashquulinaya sidii mid hadlaya sidii mid ka shaqeynaya oo options eegaya inantu dhacayana waa inanta halkaas joogtay ma fadhida counterka shaqadeeda iska wadata ma odhanayo ii dadajiyay ii shaqeeyayo ila hadlayo waxaas ma jirto oo ka inantaas markay dhaqaaqdo sheekadiisa bilaabaya wata dhaqaaqday soo maaragtid oo ka hadduu isbarbaaraya sidii mid lacagti ka luntay marka intii uu taagnaa waxaan filayaa markaa uu dibadda u baxay wixii uu soo akhriyay ba ka kala duuray marka dib uu dibadda ugu soo cabaysanayaa qorigiisii ama falalkiisii uu soo gelayaa haddana markuu soo galo haddana nin kala ag imanaya ninkiiba haddana uu aamusaya mobilkiibu ku mashquulaya dee waa tuug caadiya oo darkaysaan waa kaa soo galay markuu soo galay inantii buu la hadlaya dadku iska eegayaa inankaasi waa shaqaalaha meherada waa kaa uu aamusaya oo kaa eegay oo kaa kasii jeestay ilaa inankaa shaqada inta loo dhameynayo mobilkiisu kusii jeedaa waad aragtaan bal waad arki doontaan markuu inanku dhaqaaqay rasiid baa loo jaraya rasiidka la siiyo ayuu haddana ninkii sidiisu baaraya wakaa ficilka hadduu bilaabaya soo ma aragtid hadda rasiidka marka loo printergareey printerkaasu kasoo baxaya rasiidku delivery buu qaadayay meherada meheraduna runtii waxay ku taallaa jijiga yar waxay kasoo horjeedaa maxaa la yidhaahdaa pharmacy la yidhaahdo hooda pharmacy ay kasoo horjeedaa wataa warqadii printer kuu soo baxday kabacdi markaas haddana baaritaankii dib uu bilaabaya wakaa actionkii bilaabay soo maaragtay wakaa baaritaankii uu dib bilaabaya wakaa wakaa soo maaragtay haddaba falkii buu soo saarayaa jeebkaa ka soo saarayaa gacantiisa bidix ayuu u dhiibayaa gacantiisa bidix baa haynaysa wakaa gacanta ku haysta mobilka tashishay inantii markaa lacagtii meesha ku jirtay baa ku filnaan waayeysa dabeetana meherad kale ka xigtay $10 ugu soo kordhinaysa wataa maqalkii wixii u jiray inta yar kaashkeelaa ka muuqatana oo u ururinaysaa wixii ugu jirayna wataas uu qaado uu mar dhow u qaadanaya wakaa mar dhow daawadayaal waxaan tusi doonaa isagoo kamarada intuu kamarad iska baadho arkaya dabeetana gacantiisa isku qarinaya inantu mar iminkay baxaysaa meherad agteeda bay tegaysaa hadday kun uga soo heli lahayd way uga soo qaadi lahayd laakiin nasiib darro $10 bay uga soo heshay ninku waa inantii wataa baxday ninku wuxuu sameeyay tusayaa wakaas hadbina soo eegayaa
markayna soo eego kamarada uu ka gabanayaa kamarada uu ka gaban doonaa baleega ka wejigiisu markaa uu foorarsaday ayuu soconayaa bar kamarad iska baar baleeg soo maaratid markaa bal mar dhow eeg mar dhow in yar ka bacdi in yar ka bacdi in yar ka bacdi wakaa ka foorarsaday dib xagga sare uma eegayo dib xagga sare uma eegayo wakaa videoga aan ka duubayna kamaraduna waa kaa ka muuqda dheydkiisana waad aragtaan waa xalay weeyaan oo bishii 11aad shanteedii saacadduna waa 1952 waxay noqonaysaa around 7:52 inantiyo lacagtii u soo qaaday wixii helaysay baa u imanaysa waad arki doontaan gacanteedu ka dhufdhufanaya lacagta alaabta uu iibsadayna barteedu kaga tegaya ilaa waa nin lacag u jeediya qof kasta oo soo galana meesha uu ka aamusaya inta ereeda marayso maxaa la yidhaahdaa ninkaa waxaan u baahannahay diintii buu ceebeynaya garhkii buu ceebeeyey koofiyadii buu ceebeeyey xumaamadii buu ceebeeyey ummadda uu dhacay waxaana jirta xaajiyad dariska iyaga ana way garan weyday sawirkii waan tusnay laakiin ninkan oo kale usoo galay dahabka ka furtay inantii wataa soo gashay lacagtii wataa sidata lacagta haddana waxbay yara xisaabinaysaa wixii oo dhan bay u dhiibaysaa in yaroo cash oo dhufdhufanaya mid bay kasoo saaranaysaa ka dhufsanaysaayo eeg wataas wuu ka dhufanaya wixiiba ka dhufay soo ma aragti inta cashkaana wataa u tirinaysa in yaroo kale dib ugu noqonaysaa oo usoo ururinaysa haddana wixii ku hadhay marka habeenka hadday $10,000 haysato way siin lahayd wakaa xataa 1,000 shilinka gami tegin meesha wataa wada ururisay all khalaas waraaqaa ku hadhay meesha wataa wakaa nin walba saasuu dhacayaa haddaan la qabanin kii 100,000 haya kii 5,000 haya kii $20 haya sida inantan oo kale $50 qaatay nasiib daraana ku dhacday runtii eeg intuu baxo inantii u dhiibo falkii wakaa falkii u dhiibay haddii u dhiibay inanta wakaa u laalaabay soo maaragtay inantu wataas way kala bixinaysaa way kala bixisay way yaabaysaa wakaa kusoo noqday lacagtu u dhiibay dib uga qaadaya wakaa wixii uu ka iibsadayna wakaa kaga tegay maca salaama filimku halkaasuu ku dhammaaday markaa waxaan idinkala dardaarmaya dadkow ninkaa ha la doono kii daawadoona sheergaree ummadda u wada dir dadka u wada dira ninkaa ha laga soo qabtay Hargeysa iyo Somaliland meesha joogaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu